madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay gogasha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada taas oo ka furmi doonto magaalada Muqdisho 15 Juun 2025 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka ambaqaadayo gogoshii oo horay ugu dhawaaqay ayaa todobaadyadii la soo dhaafay ku hoolanay wadatashiyo gaar ah oo la yeeshay qaar ka tirsan madaxdii hore ee dalka iyo madaxda dawlad goboleedyada ururada siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay gogosha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada taas oo ka furmi doonto magaalada Muqdisho 15 Juun 2025 iyadoo la tixgelinayo muhiimadda ay leedahay wadatashiyo dhab ah oo ku dhisan xeerinta danta guud madaxweynuhu wuxuu sii wadi doonaa kulamo loogu gol xaarayo shirkaasi isla markaana diiradda lagu saarayo arrimaha hortabinta u leh dawlad dhiska dalka kuwaas oo ay ka mid yihiin amniga iyo dagaalada ka dhanka dagaalyahanada al-shabaab iyo doorashooyinka dhamaystirka dastuurka midnimo iyo dib u heshiisiinta haddaba waxaa laga codsanayaa siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada inay u diyaar garoobaan kaalin mug lehna ka geystaan shirkaasi muhiimka u ah dowladnimadayna ayna ajiibaan casuumaadda rasmiga ah ee madaxweynaha